wasiirka gaadiidka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Omar oo kamid ah mas'uuliyiinta ka damqaday xaaladda ay ku sugan tahay Amaal Maxamed Maxamuud oo ah gabar yar oo dhaawacay askari kamid ah ciidamada dawladda oo ay kala tageen ayaa ku booqday gurigeeda oo ay ka degan tahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. wasiirka ayaa horay ugu sii iibiyay Amaal gaari loogu talagalay dadka naafada ah ama aan socon karin kaasi oo ay aad ugu baahnayd si ay uga maaranto in musqusha la geeyo ama laga soo celiyo. waa la soconay kursi la'aan inay ahayd u baahnayd wax yar oo dhaqdhaqaaq ah marka hayraat laakiin insha Allah taala kursigana waa ku soo gaarsiinay waana ku soo booqanay booqashada ugu muhiimsan laakiin kursigana waa kulay u baahnayd marka ku faraxsanahay inaan ku guddoonsiin Allah ku caafiyo marka Amaal ayaa soo dhaweysay oo ay sheegtay inay ku faraxsan tahay booqashada iyo kaalmada uu soo gaarsiiyay wasiir Omar oo dhanka kale bogaadiyay garab istaaga ay jaaliyada Istanbul la garab taagan yihiin Amaal. waxaa dareemayaa inay dadkay garab taagan yihiin insha Allah. meesha community fiican ana jooga oo akhbaartaada dadka gaarsiiyay aad kaaga warhayo masha Allah community inta saawa caafimaad iyo filan inta hadda inta guri joogto alxamdulillah oo aad ay kaaga warhayaan community ku jecel yihiin marka Allah ku caafiyo. wasiirka ayaa dhankayga weydiiyay sida uu arko in ilaa iyo hadda aysan jirin cadaalad ay heshay Amaal oo qofkii dhibka u geystay la sheegayo in isaga oo xur ah uu si caadi ah bulshada ugu dhaxnool yahay. runtii waa ka xumahay gabar yar oo dhalinyaro oo walaasheen ah dhibka soo gaaray dhib kasta oo dhacana waxa lagu xalliyaa cadaalad in la marsiyo waa ka xumahay ilaa hadda in cadaaladda sidii la rabay inaan u dhicin waxaan rajeynaynaa insha Allah taala cadaaladdaadana waa helaysaa cadaaladda waa laba way mid adduun iyo mid aakhiro mid adduunkana waa helaysaa mid kalena waa haysataa taas aakhiro iyadoo waxay tiri waa cafiyay qofkii dhibkii geystay laakiin waxaan ku iniri dawladdu ma cafiso qof dambi geystay iyadoo la rabaa inay waajibkiisa mariso marka kulliba dhanka dawladda iyo xuquuqdeeda labadaba dawladda laga rabaa sax ما إن شاء الله تعالى وهذا وحنا مهمسن إن عافيمات تامة عايشة عدالة هذا نوهي ليساعد الله إن شاء الله. ugu dambeyntiina xubno ka socday jaaliyada Soomaaliyeed ee Istanbul degan iyo qurbajoog kale oo dibadda ka timid ayaa goobjoog ahaa waxaana ay niyad dhis iyo garab istaag u muujiyeen Amaal oo ii sheegtay inaysan helin ilaa iyo hadda cid ka caawisa dhaqaalaha lagu xiray qalliinka lugteeda. إن شاء الله ودعو إلينا ولاشين العافمات تاموسيو جاليدنا قرب تاجنته هولي قرب على قرب تاجنته إن شاء الله وحول بعبانته. حرجينا القرب جوكتنا معناه إنه ولاشين تاجرته وحلا لو وحي أنك قايب قاعدين كنا جوداس إن سيد ريكوري في عنكو سماه اللي هي لقالها النقطة نوع كله أو لوكيني كره النقطة إن أول قايب قاعدين ولاشين إلهي نحاول برينا إنه إلهي دبك قاعده وليس الله كقاعده عافمات الله كسيو. إلهي وحن كبرينا إن طاير إنه إلهي نوع عافيه. إن قفك الدب كان جيستين إنه إلهي سبحانه وتعالى وحقته صو إن أيضا عافي ما دو إلهي سي أنا كنا وانقرب تاجن هاي صومالية ودم بقرب تاجن إن شاء الله بإذن الله تعالى وحرتشين إن إلهي إنه عافية سيدا وقول أخصيا بضن إن شاء الله كل قامتي هيد ماما ونكو قرب تاجنها بإذن الله. أيان الله حسين عبدي هنولاتو إسطنبول تركي. Somalida uhilise hanolato